السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي waxaan wanaagsan saaxiibayaal soo dhawaada muuqaalkeenan waxaan ku soo qaadan doonaa saddex noloshaadu aysan marnaba ka maarmin. Saddexdan aad iyo aad bay nolosha ugu baahan tahay. Mar walba oo saddexdan laga helo waxa ku fududan doona albaab walba oo noloshaada inaad garaacid. Laakiin mar walba oo saddexdan laga waayo waxaad noqon doontaa qof in badan waxyaabo badan qabyo ka yihiin. intaan muuqaalka u guda galin fadlan dad nagu cusubtaan ugu soo biir qaybta hoose comment ugu reeb wixii fikirkaaga like share ta ka ilaa muuqaalka mahadsanidin. Number 1 intaadan hadlin dhageyso. Tusaale ahaan waxaad ka qayb gashay dooda qofka kula doodaya waa inaad dhageysataa. Haddii aad tahay qof waxa dhageysta markuu dhageysto ka falceliya waxaad bixin doontaa jawaabta ugu macquulsan ee qofkaas kula doodaya aad siin lahayd. waalidka haddii uu kula hadlayo waa inaad dhageysataa. walaal hadduu kula hadlayo waa inaad dhageysataa. macalinka cashirka bixinayo waa inaad dhageysataa. dhageysigu waa aas-aaska furaha nolosha. nambarka 1 ee laga doonayo inaad mar walba ka dhisantahay waa dhageysiga. haddii aad doonaysid cashir inaad qaadatid si raaxo u qaadatid cashirkaas darajo sare ka gaartid maadadaas markaas aad qaadanaysid waxaad u baahan tahay inaad dhageysato in badan. macalinka wax sharaxay waa inaad dhageysataa. lambar 2 intaadan qorin ka fikir. dadka qaar ayaa shaqadoodii ku waayay waxay qoreen oo noqday waxaan la qaadan karin. haddii aad doonaysid inaad noqotid qof waxyaabaha uu qorayahay ay noqdaan waxyaabo saliima wanaagsan la qaadan karo mar walbana la fahmi karo waa inaad ka fikirtaa intaad qorin. qoraalku waxa uu yahay mid qayb muhiim ah nolosha uga jira. qofka hadduu yahay qof aan waxna qorin waxna akhrin dhib weyn ayaa haysta. balse haddii aad tahay qof wax qoraya waxna akhriya waxaad u baahan tahay inaad waxa qoraysid hubisid. waxaan diyaarshay muuqaalkan hadda aad daawanaysid. muuqaalkan inta aan la wadaagin oo aan soo gudbin oo camera soo hor fadhiisan ugu horreyn waxaan raadshay ciwaankii. waxaan raadshay waxyaabaha mudan in laga hadlo. waxaan fiiriyay habka ay mudanta in loo qoro. markaas ka bacdi ayaan la wadaagay. markaan anigu diyaarshay anigu fahmay kadib in la wadaagay. laakiin haddaan iska soo hor fadhiisan lahaa waxaan rabaa sheegi lahaa qoraalka anigu aan qoran oo noqon lahaa qoraal maala yacni waxyaabo badan ayaa qaldami lahaa. marka inta aadan qorin waa inaad ka fikirtaa. number 3 isku day inta aad joojin. wax walba oo la isku dayaahi waxa ay keenan guul weyn. ha joojinin shayga ilaa aad la timaado isku dayo badan. mar walba oo tahay qof wax isku daya waxa noqon doontaa qof u sii dhawaada wadada guushiisa. balse haddii aad tahay qof wax walba uu bilaabo hore ka joojiyo u arko inuu ku guul dareystay waxa noqon doontaa qof isku daygiisu uusan badnayn. balse haddii aad tahay qof isku daygiisu badan yahay tijaabadiisu badan tahay waxyaabo badan ayaa kuu suurtagalay. marka waxaad u baahan tahay mar walba waxa aad joojinaysid horta inaad hubisid inaad isku dayd tijaabi wadada ugu fiican inaad qaada macquula. isku daygaasi laba mid ayuu ku noqon karaa. midad ku najaxdo tiraad Allah ilaahay alxamdulillah oo ku guuleystid iyo midad ku fashilantid oo noqdo mid aan hor u socdo lahayn. markaas kale waxa u baahan tahay inaad iska joojisid shaygan isku daygiisa mar walba aad ku fashilmaysid. waad ku mahadsan saaxiib ila dhamaadka hadii aan la soo gaartay muuqaalkii noo share garay laagta ka ilaawin kana mid noqo walaalaha halkan aan ku midoonay. in leeyahay mar kale mahadsanidin. hada wabillahi tawfiiq. assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.